السلام عليكم ورحمة الله. وSomaliland Group of Development oo idin soo diyaariyay barnaamij ama dood yar oo kooban oo aanu la yeelanay xildhibaan ahna gudoomiyaha gudida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa xildhibaan Saleebaan Daahir Dogax. waxaan jecelahay xildhibaanka inaanu arrimo badan iska wareysano oo khuseeya fayadhowrka iyo bilicda caasimadda iyo sidoo kale geesaha kale dhinacyada kale ee ay khuseyso doodayadan ku kooban. waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo hadiya. السلام عليكم مدن xildhibaan Saleebaan waxaan ku leeyahay mar labaad aad baan ugu faraxsanahay sida fiican ee noogu soo aqbashay doodan yar ee gaaban aan kula yeelan doono. waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal marka hore ku weydiiyo waxaad soo gashay doorasho waxaad ka soo qayb gashay waxaad ka mid noqotay waxaad ku guuleysatay golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka saameyn intee leeg bay kugu leedahay maxaad dareemaysaa? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتعادي أد بدو مهدسنتين نوعنا دي سلامة يا دمانتين إذنك إيو RGBL ميديا برودكشن إيو أصحابتك اللي الله شغينيسا هاوشانين كشي وأنا دكم هادعلني إناد سو معسونتين وحي سؤالي دي ويدينيسان الديار بانوحي سؤال شادو ورسا دان سو نقضو saameynta ay ugu yeelatay horta waa saameyn weyn weeye. waxaa la yidhi kubadda nin qofku marka ka joogo dibadda ee dibadda ka ciyaarayo way la fududahay aad bay u fududahay laakiin markaad gudaha ka ciyaarayso waa different game weeye oo waxyaabo badan baa isbedelaya. inkastoo aanu halkan doonayay aanan gaadhin golaha deegaanka ka gaadhin haddana saameynta weyn leedahay waxa weeye aqoon aad u fara badan horta oo dadkii waddanka ku noolaa haddii caasimadda tahay iyo haddii ay tahay caasimadda dibaddeeda Somaliland meel kastoo maraba aqoon fara badan dadku ay aqoon u leeyihiin. horta saameynta ugu weyn waa taa weeye oo meel kastoo maraba la garanayo aad baan ugu faraxsanahay taasi inaan noqoto faa'iidada ugu weyn aan ka faa'iiday doorashooyinkii golaha deegaanka inay siisay magac iyo ictiraaf dad badanna ay u arkaan aan ka mid ahay dadka wax ka bedeli karaya golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa. aad baad mahadsantahay xildhibaan. haddii aan aniguna su'aal taasi in yar ka duwan ku weydiiyo waxaa jirta caasimadda Hargeysa ee sidaan wada ognahayba waxa qashinka ka qaada ururo private ah oo ay ku wareejisay dawladda hoose. shirkadaha si gaarka ee qashinka ka qaada magaalada waxa ay u yimaadaan degmooyinka magaalada Hargeysa bishii hal mar bay ka qaadaan qashinka xaafadaha. bishii markaa waxa ay ka qaadaan $5. $5 weekii waxay noqonaysaa in ay ka qaadaan xaafadaha ay xashiishka ka qaadayaan gurigiiba $1 $1.25 sidee bay arrintaasi kula muuqata xildhibaan maadaama oo weekii $1.25 gurigii lagaga qaaday xashiishkii? horta aan ku soxo in yar bishii $5 way qaataan laakiin waxay diyaar u yihiin ugu yaraan weekii inay 3 jeer ka qaadaan xaafadaha ka qaadaan qashinka dan in yar dib ugu noqdo qashinka horta dawa aaf weeye mana aha wax dawlad hoose oo kaliya wax ka qaban karayso wax ka qaban karaya aniga adiga ninka baakirka sigaar halka ku tuuraya ka qaadka halka ku daadinaya ka gurigiisa xashiishka dhinac dhigaya ka kaariyoonaha u dhiibay waxaasoo dhan haddii aan laga wada hawlgelin qashinku horta mid tegaya maaha waayo waxa weeye qashinku inagu inaga soo baxaa magaalada qashinkaa buuxaa dee dibadda laynoogama keeno oo laguma soo guro magaalada Hargeysa waxa uu ka yimaadaa guryaheenu ka yimaadaa marka gurigeyga markaan qashin ka soo saarayo haddii aan qaado oo aan ku daadiyo hoftayda dee waxa weeye nadaafad darradii waxaan ka qayb baan ka qaatay qashinka wuu filqayaa oo magaalada buu kala dhex gelayaa marka waxay u baahan tahay qashinkaasi in shakhsiga iyo gruubka iyo guriga iyo hooyada iyo ilmaha yar iyo aabuhu ay ka qayb qaataan sidii looga saari lahaa
magaalada looga saari lahaa ta ugu habboon waxa weeyaan nasiib wanaag imika 4 company baa ka shaqeeyeen Hargeysa ka shaqeeya qashin ka qaada 2 company bari dhawaytolo wanaag ka qaadnay in shaqadii ka qaadnay sababta looga qaado waxa weeye hawlgab nimo ay ahayd ama waxa weeyaan khibrad la'aan ha noqoto ama tamar darro ha noqoto laakiin anagu waan ka qaadnay gol ahaan waxaan ku wareejinay 2 group oo kale oo imika aad moodo in ay dhaanto magaalada caasimadda magaalada Hargeysa sidii hore ee qashinku ahaan jiray oo imika hadii halkan aynu eegno 2 group oo ka qaadnay midna 16 Jumbo ahaa midna Axmed Dagax iyo Maxamuud Haybo ahaa maanta haddii aad u fiirsato goobii qashinka lagu wareejin jiray badankoodu waxaad moodaa inay ka sii baxayaan magaalada Hargeysa haddii aad eegto June imika dhakhtarka dibadiisa qashinkiisa habeenkii loo dhigi jiray waxaad moodaa inaanad imika iyo suuqa dhexdiisaba inaanu imika ku badnayn marka qashinka waxa weeye dagaal baan kula jirno waa dagaalka ugu weyn ee kula jirno laakiin waxa dagaalkan ku guuleysan karnaa haddii dadweynuhuna iyaguna qashinka dagaal kula jiraan gawaarida ay leeyihiin kambaniyadu xaafadaha way maraan xaafad walba waxa weeyaan mushkiladda ugu weyn waxa weeye maalinta waxa laga waqti ka ridaya qof oranaya anu xashiishkayga dhibi maayo iyo maxaan in 1,000 shilin u bixinayaa aanu qaadiman dooxba ku soo tuuro caqabada taalo waxa weeye qofkiina inuu qaado dooxa geeyo wax ka cilinaya ma jirto haddii aanan anagu dawladda hoose ahaan awoodi karin qofkii inaanu qabanno oonu xidhno de qofkii qashinkii uu geynaya dooxii uu geynaya ama laagtii uu geynaya ama meesha doona ku tuuraya mushkilad kale oo iyaduna taalo waxa weeye enforcementkii ay meesha ka maqan dawladda hoose ma laha minishiibiyo dadka soo qabqabata sidii berigii hore waxa weeye qofka anagu markaanu qabanno waxaanu geynaynaa stationkii baanu geynaynaa stationkii nin 1,000 shilin lagu soo xidhay intuu xidhnaanay waad iska garanaysaa markaaba ninkaa 1,000 shilin lagu soo xidhay waxa suurtagal ah inuu wasiir soo hadlo oo yidhaaha la ii sii daayo ama nin kaloo xildhibaan soo hadlo ama nin kaloo madaxi soo hadlo ama mid lacag li soo hadlo lagama helmay marka dadkii lagama helayo marka la soo xidho oo ninkii miskiinkii ra'iisul liga haystay ee taliisa liga telefoonkiisu ku laanaya hebel baad soo xidhay hebel baad soo xidhay waa miskiin waa iska siidaa wadada marka lagu qabto dadkii baa ka riday oo dhanaya waa miskiin maxad kii kaariyona sidii xashiishka daadinay dadkii baa kugu qabsanaya nin miskiin maxad weerinaysaa waxa ka ceeshay iska daa waa ka wadada qawas oo iska qabsanaya nin qof hadaad la hadasho wadada xashiish wadada ku daadinaya oo taroomeed isla yaabin wuxuu ku oranaya maxaa ka galaaday indhuhu ma kaba kaaga dhacay marka waxa weeye waxa loo baahan yahay awareness fara badan baa loo baahan yahay oo kan imika aynu haysano ama aynu helay mid ka badan baa loo baahan yahay xaafadaha waxa kale oo jira anagu hotline baan sameynay telephone number baan sameynay 2002 ayanu sameynay dawladda hoose maanta hadduu guriga soo hadlo ama guriga ku xiga soo hadlo oo yiraahdo qashinkii baa laga qaadi waayay anagu markaba waxaan la hadlaynaa agaasimayaashii qashinka kambaniyada qashinka maxaa gurigaasi qashinka looga qaadi waayay waxa hubaala in subaxda dambaba ay ka qaadayaan qashinkii qaadayaan isna intii subscription-kii yaraaye uu bixin lahaa laga qaado waad ogtihiin haddii cashuurta marka la yar dalaco dadku aad bay u qayliyaan $5 marka haddaan dhahno guri walba ha lagu dalaco $5 bishii ha lagu dalaco dib sanadkii waa $60 weeye $60 guriga marka lagu dalaco qaylo weyn baa ka yeeraysa oo cashuurtii waa la dalacayay anaga waxaan noo fududaan lahayn in la yidhaahdo guri walba $5 laga qaado qashinkana halkaa la soo dhigo ha la guro qayla ka dhacaysa iyo baarlamankii lama soo marin iyo halkii lama geyn iyo kan lama samayn iyo yani hadal badan baa ka imanaya marka waxyaaba badan oo bureaucracy badan iyo dadka qaarna ay siyaasadeeyaan dadka qaar iyagoo waxba hubsanaya magaalada waxyaaba badan ka hadlaan ayaa jira laakiin xaqiiqatan halka ay u dhimatay waxa weeye waa in dadka iyo dawladda hoose iyo ciidamada nabadgelyada ee ilaalinaya nabadgelyada ilaaliya ay ka wada shaqeeyaan iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya oo dhan ay ka wada shaqeeyaan number 1 wacyigelin lagu bilaabo number 2 enforcement in lagu sameeyo marka ay suurtagal tahay in service-kii uu jiro way haddii aanan gurigan qashinka qaadi karaynin oo aan dabeetana yiraahdo qashinkii baad daadanaysaa qofkan de khalad weeye laakiin haddii aan ka qaadi karayo qashinkii oo aan 1,000 shilin iska bixi maalintii ama 500 iska bixi dawaa waxa way qasab ugu leeyahay in la xiro qofkii hadduu bixin waayo nasiibuna guryaha yaryar oo dhan danyafta ay ku jirto ama buul ha noqoto ama sanduuqad ha noqoto cid lacag qaada ma jirto bilaash baa laga qaadaa oo waxa loo baahan inuu halkaas soo dhigo dadka de qashinka badan soo saara oo dadka de waxa haystay weeyo guryaha waaweyn ku jira weeyaan marka dadkaas baa lacagtan laga qaadaa ku yaraan lacagta waa laga dhaafay
laakiin imika cakaaro oo kale iyo state houseka iyo meelaha waaweyn oo kale kilka shanaad oo kale de qof lacag ka qaada iyo daami iyo qof lacag ka qaada ma jiro bilaash baa laga qaadaa ama meel ha ku shubana meesha ha laga qaado ama meel u dhow ha laga qaado bilaash baa laga qaada waxaan filayaa su-aashaada ka jawaab mudane xildhibaan waad mahadsan tahay maasha allah waxaa jira magaalada markaad dhex marayso goobo muhiim ah oo aad arkaysid inay xashiishku tuulo yihiin sida suuqa ay ka mid yihiin bacadlayaasha goobaha istaanada ay basasku istaagaan amaba meelaha ganacsiga uu badan yahay waxaad arkaysaa isla saacad gudaheeda iyadoo xashiishkii laga qaaday haddana ay xashiishkii soo buuxsameeyo mis leedahay in si joogto ah looga guro xashiishka meeshaasi aan lagu daynin in maalinta kale lasoo maro balse bacda after hours ka bacdi bay in laga guro xashiishka suuqoo kale dhibaataa jirtaa ma laha suuqeenu goobo xashiishka lagu ururin karo badi waxay sameeyaan sakda dhexe marka la rawxo ay wadada halka dhexe soo dhigaan marka ay dhigayaan laftigeeda gawaaridii qashinka qaadaysa shaqadii bay ku jiraan oo dhinacaas ka soo bilaabaan dhinacaas uga baxaan oo hawshoodii wadaan imika waxa dekada berbera noo yaala haamihii qashinka lagu ururinayay dukaan walba soo dhigayay wixii la cabo iyo wixii kaleba lagu gurayay haddii taasi hirgasho oo aanay dadku dee qaadan oo ka dhigan alaabay biyaha ku shubtaan ka dhigan bahalahaas qashinka lagu ururinaya gaarigu iman karaya oo ka qaadi karaya oo ka tuuraya bacadlayaasha laakiin dhibaataa jirta waxa weeye bogosyadii ay soo daadinayeen qashinkii kale soo daadinayeen meel allaala meel la dhigaa oo caasimada dowladda meesha dhexe marka suuqa dhexe ka hadlayna sheegaya meel la dhigaa ma jirto marka waxay qasab tahay in ilaa inta xal la helayo in qofna intuu sakda dhexe soo dhex taagnaada suuqa dhexdiisa dukaankiisii lama hor taagnaanaya qashinkii marka ilaa inta xal la helayo waxay noqonaysaa inay meesha dhexe yimaadaan oo habeenkii at the same time laga nadiifiyo noqonaysaa xildhibaan sida aad sheegtay arrin wanaagsan baad ka dhawaajisay iminka oo ah in haamihii qashinku ay dekadaydin yaalaan mas leedahay hamaha qashinka waxay u baahan yihiin intaan iyaga la keenin magaaladii inaynu dadkii miyaanay u baahnayn in lagu sii wacyigeliyo si qofkii qashinka soo saarayay ama ganacsada ha ahaada ama qof wadada dhex marayaba softi ugu yaraan ha ahaadee ama caagad tuuraya si aanu ula dhaafin haantaa qashinka ee uu halkii loogu talagalay u geeyo miyaanay ahayn ma kula tahay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin in loo mariyo tifiyada maxalliga ah siiba ahaan haweenku waxay xilliyada habeenkii aad u daawadaan tifiyada halkaas miyaanay kulahayn in loo mariyo wacyigelin ku saabsan maareynta qashinka iyo fayadhowrka isla markaana loo sheego lexejeclada iyo wadaniyadda waa su-aal wanaagsan waxaan filayaa sanadkii markayna dhaafay bilowgiisii in NGO ka mid ah NGO-yada magaalada degan lagu siiyey lacag lagu siiyey World Bank ku siiyey lacag way ku dalbadeen ayaan darradu waxa weeye dadkeenu markay saas oo kale lacag u dalbadaan iyo intay ka bilig siiyaan bay wax iska qaataan markay doonayaan oo ku barayaan way noo yimaadeen way noo weydiisteen warqadaan siinaynaa dadkan magaalada wax ka qabanayaan waxyaabay soo kordhinayaan wixii markaad u dhamaysay ay la tagaan meelihii lacag kaga qaadanayeen NGO-yadu qaarkood qaar badan ba wax qabtee qaarkood waxay keenaysaa in wixii aanay sidii loogu talagalay u qaban adna waxaad soo dhansaaba waa laga furto waxa qabanaya wacyigelintii qolo number of the organization ayaa qabanaya wacyigelintii wada socdaas kulli waad aragteen boorar ku taagnaayeen magaalada ku taagnaa oo qashinka halkaa ku fidiyo qashinka sameeyo iyo waxoogayroo magaranaysa hal ku dhigyo ay meesha lagu soo nabay wiig ama laba wiig kadib u malayn maayo inay bilba magaranaysa nala gaadheen way wada dhaceen oo iyagoo meelaha dhacsan baa laga jiray wacyigelinta waa tan markii dowladda ka hadlayay wacyigelin la-aan wax soconaya ma jirto dadkana waxa weeyaan dee rooma maalin laguma dhisin weye dadkan waa in maalinba loo sheegaa wax yar oo la yidhaahdaa iskuulka laga bilaaba iminka meelaha qurbaha aynu joogi jirnay ciyaalka yarar ee iskuulka dhigta ayaa lagu bilaabaa kuwa waaweynba waa la iska daaya oo dee hore usoo qaateen laakiin ilmaha markuu iskuulka tago wax la barayaa nadaafadii siduu gacmihiisa u maydhayo siduu isaga ilaalinayo xataa bacteria siduu isaga ilaalinayo xataa ilaa albaabka la odhanaya gacanta ku qabanina mara iyo wax iskaga qabo oo iska ilaali baa la odhanaya xashiishka halkaasaa lagu ridaa wadada saasaa looga tallaabaa iyadoo laftigeeda waxa wacyigelintu waxbarashadeeni bay ka maqantay mala xisaab iyunba lagu bilaaba markaaba iyo science iyo wax ma garanaysaa iyo
aan ka maqanba arrimihii bulshadaba qofku siduu u noolaan lahaa ka maqan ayaa iskuulka lagu bilaabay. marka iskuulka inaynu ka bilowno iskuullada hoose ciyaalka markay saa u tagaan malcaamadaha inaynu ka bilowno in iskuullada hoose kuwa dhexe kuwa sare ilaa jaamacadaha lagu dhigto environmentka lagu barto sida loo wanaajinayo. marka wacyigelinta waanu aad baa loogu baahan yahay. waad mahadsantahay mudane xildhibaan, maadaama caasimadda dadka ku badanay aada u tiro badan yihiin, dad badan ku nool yihiin, goobaha qashin qubkuna iyo baaxadda magaaladuna aad moodid inaanay ku fillayn, sidee ayay kula tahay xildhibaan? meesha dadkiina way ka badan yihiin, caasimadiina dadkii baa ka batay, populationkii baa ka batay, marka goobihii qashinka lagu shubeeyeyna dadkii baa ka badan, marka sidee bay kula tahay, si kula muuqata adiga? waxa weeyaan systemyada jira adduunka looga ururiyo qashinka looga ururiyo. systemyadaas waxa weeyaan waa in dadka la baro weeye, dowladaha hoosena bartaan. dowladda hoose laftigooda training bay u baahanta, oo dee aanu qashin kama shaqayn jirin, mana u lihi aqoon, laakiin waa in la helaa dad expertise oo aqoon u leh waxaan sida loo manage karayo ama loo furdaamin karayo mashaakilkan. laakiin inta indhahaygu arkeen ama de caqligaygu arkeen ama intaan soo jireen arkayay, de waxa qofkani qasacadii weyneyd buu haystaa, qashinkiisii si wanaagsan buu ururinayaa, wixii kartoona iyo recycling u baahan wuu ka saarayaa, caagado iyo qasacad iyo warqad wuu ka saarayaa, wixii kalena bac baa lagu xidhayaa, meel haan baa lagu ridaya, halkaa kadinku iska dhigaya gurigiisa kadinkiisa. cid ku ciyaaraysa iyo cid kubad ka dhiganaysa ma jirto. ciyaalka yar waa loo sheego taabanna waa qashin, waxa weeyaan waa wasakh weeye, gacmaha wasakhaynaya taaban, cid taabanaysa ma jirto. gaarigii baa sakad soo maraya oo qaadaya qashinkii, guri walba ka hor qaadaya. marka waa hami aynu gaari karayno haddii laga shaqeeyo, dadka laga wacyigeliyo, kambaniyadana la kobciyo. kharashku wuu yaro badanaya, laakiin waxaa iyaduna wanaagsanaanaysa dee bilicdii iyo nadaafaddii magaalada. midda kale doonaya inaan halkan ka xuso kale haddii qashin ka hadlayno, de waxa weeyaan mushkilada halkiisa haystaa. haddii keliya waxaanu ka hadlayna qashin meel lagu daadiye, haddii keliya la helo guri walba inuu hortiisa nadiifiyo, hortiisoo keliya, waxa weye magaalada bilicdeeda wax weyn baa iska bedelaya, nadaafadeedana wax weyn baa iska bedelaya. waxa weye guri kasta oo aad iminka halkiisa ka eegto, ama bac baa hor taalla, ama garanwaa baa ku horbaxay, ama qashin baaba hor yaalaba. marka markaad adigu gurigaagii ka hor qaadi weyda qashinkii, de meel kale uma turaysid. yani ninka guri weyn dhisanayo oo qurux badan oo fiilla ah oo aad yaabayso, falaawarka gudihiisa ka baxay aad yaabayso, hortiisina qashin baa yaala. wax laga yaqiiqsoodo weeye. waa inuu qofku ogaadaa bilicda gurigiisan iyo quruxdiisan iyo wanaaggan inuu ku xidhan yahay qashinkan iyo dhagaxan iyo qorigan iyo waxaanu meesha soo hordhigaya weyn, gurigiisa hordhigaya inay foolxumo ku keenayaan, nadaafad darro ku keenayaan, securityga u xuntahay loogu gaban karayo. marka qof walba hadduu garanwaaga hor yaalla iska gooyo, bacda iska qaado meesha ku dhegdhegtay, qashinka iska hagaajiyo, dhagaxa hor yaalla iska hagaajiyo, intuu leeyahay gaariga halkaa maraya fogee, dhagaxa ku fogeynayo, ayuu qashinkii magaalada dhan soo qabsaday. marka taasna waa loo baahan yahay in iyadana qof walba gurigiisa iyo businesskiisa horta bal nadiifiyo. goobahana waa laga shaqayn doonaa insha allah. aad baad mahadsan tahay xildhibaan. waxaan jecelahay in aan ku weydiiyo, waxaad xustay bilowgii hadalkaaga in qofkii aad yani ku qabataan, qofkii xashiishka bixin waaye lacagtii oo kale, ama qofkii qashinka ka hor qaadi waaye gurigiisa, haddiiba aad xidhaan in mushkiladii idinka soo wajahayso saldhigyadii, maxaa idinka meel yaalla kaas oo kale iyo qofka isagoo qashin dhigaya goobaha danta guud iyo suuqa lagu qabto, qofka lagu qabto isagoo qashin dhigaya goobahaasi, maxaa yacni golaha deegaanka uga meel yaalla ee ay u qorshaysan in qofka tallaabo laga qaado? ta kaleen kuu raacinaya waxay tahay tan wacyigelinta iyo taa haddaan isku lifaaqa labadaba waxay u baahan yihiin yani tallaabo cad oo ay golaha deegaanku ka qaado. waa in sidaa la yeelo oo keliya ta maaha, waxaa loo baahan inay dadku maqlaan, dadku waxay jeclaysanayaan in dhagahoodu ay maqlaan taa iyo taas baa nooga qorshaysan oo miiska saaran oo laga doodaya. ishiyada laga doodaya ee miiska golaha deegaanka saaran ma yihiin? haddaanay ahayn ma kula tahay in miiska aad geyso ka xildhibaan ahaan iyo ka guddoomiye gola arrimo bulsho ahaan? tanaan ku horeeyo imka dambeysay anagoo dad sharci dowladda hoose waxa weye sharci dejin
inaan noqsano bylaws wax la yidhaahdo soo saarno bylawskii nasiib wanaag qashinka iyo fayadhowrka iyo wixii ku shaqo lahaa oo dhan sanadkiina dhaafay baan baas garayna marka sharcigaas uu yaala wixii lagu ganaaxayey iyo wixii qofkaasi qabanayey iyo sidii laga yeelayay waxaas oo dhan systemkeenu markaan ka hadlayno ama justice systemka ha noqdo ama police systemka ha noqdo uma haysano qalab aynu ku soo xidhxidhno ama ku hayno dadka qashinkoo kale lagu soo qabanayo maanta haddii olole lagu qaado lasoo qabqabto dadka qashinka lagu soo qabanayo oo ganaax keliya lasiraha ganaaxa waxa la helaya dad badan oo ganaaxi bixin karayn maxaa yaala qofkii aan ganaaxi bixin karayn waa in la xidho noqonaya qofkii waa in qofkii lagu shaqeeyo oo dhulkii nadiifiyo oo la yidhaa dad loo sameeyo kaxeeyo oo la yidhaa halkaad nadiifinaysaa lagu shaqeeyo wey waa in saldhigyadii lagu hayaa waa in maxkamaddii la geeyaa oo la xukumaa marka maxkamadda xukuntay ganaaxdo ama xarig ku xukunta ama ganaaxdo waa in jeelkii la geeyaa jeel dad intaa la eg qaadaya wata ma hayno saldhigyo dad intaa la eg qaadi karayana ma hayno marka ololo lagu qaado dadka qashinka daadinaya ama ganaax ha noqoto ama ha noqoto xarig waxay u baahan tahay kafiirsi aad u fara badan in lagala hadlo ciidamada booliiskan ka wada hadlo inkastoo nimanka wada hadlo bilaabmeenoo waxyaabaha iyo waxyaabo ka midaba laga wada hadlayo in jeelashii waxa weyn jeelashiina way buuxaan sida waqtiinba marka haddii la yidhaahdo 500 qof xashiish lagu soo qabtay hal la geeyo jeelkaagiisa inta ku baxaysaba adduunka qarash waxa laga fikiraa imsa ku bixi doono qofka la xirayo qofka lagu soo xiray 1,000 shilin buu bixin waaya ama $5 buu bixin waaya imsa ku baxaysa askari baa xiraya askariga baa ka xaynaya maxkamad buu geynaya lawyer baa hadlaya xeer laaliya ka daba hadlaya waxa jeel baa la geynaya askari baa yani imsa ku baxay qofkina $5 baa lagu soo xiray waxa qofkii marka maanta la ganaaxo bari la ganaaxo deesaadama waa in la xiraa xarig ciqaabeed la maraya xariga ciqaabta kharash buu leeyahay kos buu leeyahay wadada ugu wanaagsan waxa weeyeen wacyigelin iyo qofku inuu isagu iskaraameeyo isxilqaamo inuu qofku ka qajilo inuu gurigiisa xashiisho yaalo inuu ka qajilo inuu warqad ku tuuro meel waxaan jecelahay inaan noo soo gabagabeeyo doodoonnii koobnayd ee aanu la yeelanay xildhibaan ahna gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka Hargeysa xildhibaan Saleebaan Daahir Dogax